Asalaamu calaykum. Maanta iyo barnaamijkeena ayaa waxaan kaga hadlaynaa qodobo cajiib ah oo ku saabsan dareenka dumarka. Aadanuhu waa muhiim inuu wax ka yaqaano nolosha iyo wax kasta oo soo wajaha intuu nool yahay. Waxaana dhacdo in aadmiga dhanka galmada ay u tahay mid dabiici ah oo aan la iloobi karin inta uu nool yahay. Si uu helo galmo ama xiriir wanaagsan ay ku aadaan dhanka galmada, wuxuu u baahdaa inuu helo wanaagga ku habboon noloshiisa, isagoo dhammaan waxaasi ka baran kara goobaha lagu horumariyo arrimaha bulshada. Baaritaanno la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in hablaha da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 29 ay ka haystaan aqoon ku fiican kulanka sariirta, halka ragguna ay ku yartaa aqoonta ay ka haystaan qolka raaxada. Mar haddii aysan fududayn inaad u sheegtid ninkaaga sida aad doonaysid inuu kugu raaxeeyo, ayna kugu adag tahay inaad kala hadasho sidii aqoon ku saabsan galmo loo wada baran lahaa, ayaa waxaa muuqaalkan inkugu soo gudbin doonaa qaabka ugu wanaagsan ee lamaanayaasha noloshooda ku maarayn karaan baashiiska. Marka ugu horreysa oo natiijo fiican laga gaaro qolka sariirta, waxaa muhiim ah in la galo iyadoo aad loo wada kululaaday. Baashiinta, dhunkashada iyo salaaxa ma ahan inay noqoto mid marka sariirta korkeeda kaliya la isku arko la sameeyo, laakiin waa inay ahaataa mid tusaale ahaan la sameeyo subaxii marka la kala tegayo oo shaqo iyo arrimo kale la kala aadayo, taasoo xaaskaaga ku bilaabaysa in iyadoo dareen ku qabta shaqada la kala aado. Faa'iidada ku jirta dareenka aad tustay dhunkashada iyo salaaxa ayaa waxay ku arkaysaa in aad tahay mid markasta xaaskiisa raba oo jecel, halkaasna waxaad ka arkaysaa natiijada ka soo bixi doonta. Dareenka jirka dumarka. Jirka dumarku wuxuu leeyahay meelo aad u dareen badan, laakiin nasiib darro lama aysan dhalan buugaag ay ku qoran yihiin meelahaasi. Marka waxaa habboon inaad baaritaan ku samaysid si aad u hesho meelaha ay xaaskaaga ka leedahay dareenka badan, si ay u muujiso dareenkaasi. Waxaad ka fahmaysaa inay ku raaxaysanayso, markaas ayaa waxaad ogaanaysaa inaad waddo fiican cagta saartay. Qalabka aad adeegsanaysid si aad u hesho meelaha aad dareemaysid ee dareenka badani waa dibnahaaga, carabkaaga, farahaaga iyo gacmahaaga. Natiijadu waxay noqonaysaa hooba iyo hoobay leedahay. Kala bedel noocyada galmada. Galmo kala duwan oo noocyo badan leh waxay keentaa raaxo badan, laakiin galmo hal nooc kaliya waxay keentaa xiise jab. Mararka qaar waxaa fiican in saacado la wada raaxaysto, halka mararka qaarna mid gaaban oo degdeg ah oo xiise badan leh, isla markaana kolba uu ahaado qofka mid firfircoon oo shaqada wada, halka qofka kalena uu ahaado mid degan. Natiijaduna waa idinkoo hela galmo aad u macaan oo raaxo leh oo xiise badan, kana badbaada galmo hal nooc oo kaliya ah. Ogow waqtiga aad joojinayso galmada. Waa inaad joojisaa marka ay dhamaato. Ragga qaar ayaa waxay u maleeyaan sii wadida galmada marka ay dhamaato inay tahay mid fiican. Dhab ahaantii waxa ay rabtaa xaaskaagu inaad sii wadid galmada inta ay ka biyo baxayso, kadibna jooji. Waxaa kaloo muhiim ah in ninka uu xasuusnaado in marmarka qaar galmadu ay ahaan karto mid si dhaqsi ah ay xaasku ku biyo bixi karto, marna waqti dheer qaadan karto. Markaas kadibna in hab la siiyo isla shumiyo oo aan la kala cararin. Natiijada aad ka helaysana waa adiga oo ogaanaya in marka qaar qofka hore ka biyo bixi karo, marna uu qaadan karo waqti dheer, adigana aad isaga kor ciyaarayso culayska ah in aad ahaato nin fiican oo galmada wadi kara saacado badan. Si kastaba aad u daasheen, waxaa muhiim ah in galmada kadib in aad ahaataan kuwa sii raaxaysanaya. Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in ragga qaar hurdo ay qabato galmada kadib. Haddaba xaaji, si aad u seexan marka aad xaajiyadaada sariirta isla aadaan, waa inaad u kala raaxaysataan xaaskaaga xilliyo kala duwan. Gunaanadka sheekada ayaa ah mid labada dhinac si wanaagsan u dhiirigelin. Mar haddii la waayana wanaaggaasina iyadoo aqoonta labada dhinac ay noqon doonto mid kaafisa ama si laba jibaarta macaanka iyo wanaagga sariirta la sheegayo inuu yahay halka ay ka dhisanto ama ay ka kobocdo xiriirka qoyska.